السلام عليكم. maxaa loogu bixiyey maasuuniyadda maasuun? sida ay iyagu sheegayaan, maasuun waa eray faransiis ah masonry oo micnihiisu yahay wastaad. waxa ay xirfadoodii hore ahayd dhiska oo ay ku shaqaysan jireen. kadib waxaa loo bixiyey frank masonry oo ah wastaadka runsheega ah, waana halka ay ka soo jeedo wastaadada xorta ah. balse xaqiiqadu sidaa ma tahay? كيف تربط كلمة لامساس بالماسونية؟ كلمة ماسون هي كلمة إنجليزية وتعني البناؤون الأحرار. كيف جعلتها لامساس؟ كيف ربطت هذه بتلك؟ نبي الله موسى عليه السلام عندما لفظ هذه الكلمة لامساس لفظها بإحدى اللهجات السامية. إذا بحثنا عنها سنجد كلمة لامساس في جميع اللهجات السامية تلفظ بنفس الحركات الصوتية، في العربية، في الآرامية، في السريانية، في جميع اللهجات السامية. وعى السامري هذا القول، وعاه تماما. لامساس لا أحد يستطيع أن يماسك أو أن يطلع عن خفاياك أو أن يخالطك أو أن يكشف أمرك إلا إذا أنت أردت له. فسمى أتباعه الماسون الذين مقربون منه، هو يختار من يريد. نجد أن الحركة الماسونية الآن معروف هذا لدى الجميع، أن من أراد أن ينتسب إلى الحركة الماسونية لا يجد بابا يطرقه ليقول أنا اجعلوني من الماسون. هكذا نقرأ عنه، بل هم من يختاروا فلان فيجندوه. فالماسون، كلمة ماسون، المفارقة العجيبة الأخرى، الآن في الوقت المعاصر تلفظ بنفس الحركات الصوتية في جميع لغات العالم، في العربية، في الإنجليزية، في الروسية، في اليونانية، في اليابانية، في الهندية. أي لغة تخطر على بالك الآن اذكر كلمة ماسون تكون بنفس الحركات الصوتية. ماسون 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 ماسون. taasi waxay caddayn u tahay aragtidii ahayd in saamiri uu yahay dajaal. sidoo kale laga soo bilaabo maalinkii uu nebi muuse ku yidhi saamiri ereygaas. منذ ذلك اليوم أصبح لهذا الرجل أتباع وماسون له مقربون منه على درجات وعلى مر العصور. هو يقرب من يريد، هو يؤوي إليه من يريد. وبهذا الاسم، باسم المساس، بهذا الاسم سماهم الماسون. الماسون، الحركة الماسونية التي عمرها أكثر من 3000 سنة. هذا هو زعيمها، هذا هو قائدها الذي يعيش على هذه الأرض شابا منذ آلاف السنين. sidii aynu soo sheegnay, maasuuniyadda waxaa u hirgalay duumintii khilaafada islaamka iyo qabsashada qudus. sidoo kale waxaa u hirgalay kala qaybinta caalamka muslimiinta oo halkii ay maalin ka lahaayeen hal dawlad oo mid ah. hal calan oo mid ah. hal dhul oo mid ah. hal ciidan oo mid ah. iyo hal suldaan oo keli ah. waxaa loo kala qaybiyey 57 dawladood. 57 calan.
57 madaxweyne iyo 57 ciidan oo aliso ah. بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. kala qoqobidda caalamka islaamka ummadda Soomaaliyeed kama ay badbaadin ee nasiibkeeda ayay ka heshay. khariidada Soomaalidu ama dhulka ay degaan waxa uu ahaa hal deegaan oo ay degan yihiin dad isku af, isir, diin, madhab iyo midab ah. markii uu gumaysigu yimid dhulka Soomaaliyeed waxa uu u qaybiyay 5 aag oo uu mid walba cadow u gacan geliyay. shanta aagna waxa weeye Italian Somaliland, British Somaliland, French Somaliland, NFD iyo Ogaadeniya. shantaas aag mid ka mid ahna waxa gacanta loo geliyay cadowgii ugu weynaa ee ay ummadda Soomaaliyeed lahayd oo ah Itoobiya. 1948 ayaa Ingiriiska isna go'aan ku gaaray in dhulka Soomaalida ee maanta ka tirsan Itoobiya uu ku wareejiyo sidii ay dhigeen heshiisyadii labada dhinac dhex maray sanadihii 1942 iyo 1944. go'aankaasi oo jigjiga laga dhawaaqay waxa ka dhashay rabshadahaasi oo ay ku dhinteen dad tiradooda ay gaadhiso ilaa 25 qof oo Soomaaliya. hase yeeshee 23 bishii Sebtembar sanadkii 1948 ayuu Ingiriisku Itoobiya ku wareejiyay dhulkaasi. 29 November 1954 ayaa Ingiriisku heshiis cusub uu la galay Itoobiya oo kaga baxay dhulka la oran jiray Hawd iyo Reservoir. goorma ayaa haddaba Ingiriisku u sheegay dadka Soomaalida ah inuu bixiyay Hawd iyo Reservoir ama dadka Soomaalida ay ogaadeen 6 bilood ayay arrintii qaadatay intii ay isu diyaarinayeen intii noogu sheegaan. maalintii dambe ayaa barastaabka naftiisu ku dhawaaqay 28 February 1955 28 February 55 ayaa lagu dhawaaqo la yiri dhulka la yiraahdo Hawd iyo Reservoir malihidin Ethiopia ayaanu ku wareejinay. intaas markay dhacday magaalo kasta waxa laga sameeyay mudaharaad. ninkii hadlaabana uu ku halqabsaday wuxuu yiri Ingiriisku khiyaamay. waxa dhacday dadkii Soomaaliyeed shacbigii inuu kacay 29 bishii November sanadkii 1954 ayaa Ingiriisku saxiixay heshiis cusub oo la galay Itoobiya oo uu kaga soo baxay Hawd iyo Reservoir dhulkii la oran jiray. mudaharaadyo ballaaran ayaa ka dhacay Somaliland oo lagu diidan yahay dhulka Ingiriisku uu wareejiyay. waxaana markiiba la qaban qaabiyay wufuud in loo diro London iyo New York. abriil sanadku markuu 1956 ayaa wafdi ka socda guddiga baarlamaanka Ingiriiska ugu qaabilsan xiriirka dibaddu ay tageen Itoobiya si ay ugala soo xaajoodaan Itoobiya dhulka la isku haystay ee Soomaalida oo ay doonayeen inay dib uga iibsadaan. hase ahaatee uma suuroobin. 25 bishii August sanadkii 1956 ayaa boqorkii la oran jiray Haile Selassie ee Itoobiya markaasi ka talinayay hadal uu ka jeediyay magaalada la yiraahdo Qabri Dahare. waxaana uu ku sheegay in Soomaalidu ay ka mid yihiin qoyska weyn ee Itoobiya. markii uu gumaysigii ka baxayna 3 ayaa la xoreeyay. labada cadow loo gacan geliyayna cadaadiskii iyo cadaabtii shisheeyaha ayay ka hoos jireen, welina way ka hoos jiraan. intaasna lagagama harin ee weli waxaa loola daba socdaa shirqoollo iyo hagardaamooyin ka dhan ah jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. qoraal uu qoray qabiil u dhashay waddanka Kenya kaasi oo la yiraahdo Donald Kipkori. qoraalkaasina waxaa lagu faafiyay wargeys qarameedka ugu weyn waddanka Kenya ee Daily Nation. cadadkii soo baxay 4 bishii 10 2008 waxaana uu qabiilku u qoray hadalkiisa sidan: Kenya iyo Ethiopia waa inay jarjaraan Soomaaliya kadibna labadooda midba jeex qaataa.
mid walba waxay qayb u heli doontaa 300,000 square kilomitir oo ay dhulkeeda ku ballaarsato iyo ilaa 5 milyan oo qof oo raaciye cusub u noqda. marka labadan ciidan qabsadaan dhulka Soomaaliya ee aanu ku dhawaaqnay inuu ka mid yahay dhulkayaga, xulafadeena reer galbeedka way nagu taageeri doonaan iyagoo u arki doona arrin iska dhamaatay. Jabuutina sooma faragelin karto qorshaha lagu gunaanadayo aayaha Soomaalida. Soomaaliya ma ahan dawlad maanta jirta oo leh xuduud ay ilaashato, kaliya waa magac isaga dhex qoran qariirada dunida. waxa kale oo ka mid ahaa qoraalka lagu qoray wargeyska Daily Nation. Kenya iyo Ethiopia maanta ilbiriqsiyo way uga fududahay in saacadii ay doonaan ay madaxda Soomaalida ka saxiixdaan wixii ay doonaan kana ansaxsadaan. waqti kasta madaxda iyo xeerdejinta Soomaalidu waxay dhooban yihiin magaalada Nairobi. waqtigii aan doonno ayaan isugu yeeri karnaa hotel ku yaala Nairobi. halkaas ayaan uga saxiixan karnaa sharciga aan dalkooda ku kala qaybsanayno, ayuu yiri innaga iyo Ethiopia. qarashka nooga baxa howlgalka aan ku qabsanayno dhulka Soomaalida waxa bixin doona Soomaaliya. waxay la mid noqon doontaa sida berigii xulafadii qabsatay wadanka Jarmalka ee qarashkii dib ugu dalacday Jarmalka. Soomaaliya waa dhul hodan ah oo ay ka buuxaan batrool, gaas dabiici ah, uranium iyo macaadin kale oo aad u fara badan, iyo weliba khayraadka badda oo aan xisaab lahayn. isla markaa aan la wareegnaba waxaan ku marti qaadi doonaa saaxiibadeena istaraatiijiga ah inay noo soo saaraan khayraadkaas oo aan ka wada faa'iidaysano. Maraykanka iyo Ruushku way ku farxi doonaan, wayna noo abaal gudi doonaan haddaan Soomaaliya qabsano oo aan dalka iyaga ku darsano. hiigsiyada maasuuniyiinta u hirgelay waxaa ka mid ah in ay sameeyaan hal dawlad oo ay adduunka ku maamulaan. hal af oo adduunka oo dhammi isku fahmo. iyo hal diin oo adduunka oo dhan ka adeegta. wayna ku guulaysteen oo adduunka waxay u sameeyeen hal dawlad oo ah qaramada midoobay. hal af oo ah luqadda Ingiriisiga. hal diin oo ah fidinta diin la'aanta. waata keentay in arrin kasta oo adduunka ka dhaca ay qaramada midoobay faragashato iyada oo isu arkaysa inay tahay dawladdii adduunka maamulaysay. Out at the United Nations are just simply, in a nutshell, one word, they're Luciferian. And I'm just sorry to report that, but that's just what it is. And so all of the people today who are promoting the United Nations and the concept of world government, whether they know it or whether they don't, whether they're doing it for money or whether they're doing it for power or for whatever reason they're doing it, they are promoting the philosophy and the religion of the iyo
in aqoonta lagu saleeyo af ingiriisi lagana dhigo afafka kale ka sarreeya oo ka mudan. waana tasababtay in diin la'aantu adduunka iyo dhulka islaamkaba ku faafto ilaa ay gaadhay in 8% dadka adduunka ku nooli ay noqdaan dad bilaadiin ah oo loo yaqaano mulxidiin. dalalka muslimiintana mulxidiinta ku nooli waxa ay gaadhayaan Masar 3 milyan, Pakistan 2%, Sacuudiga 6%, waxa uu la mid yahay xagga tirada dadka bilaadiinta ah dalka Belgium. waana sida uu qorayo website-ka alcarabiya.net oo laga leeyahay dalka Sacuudiga. qorshayaashooda kale ee u hirgelay waxaa ka mid ah jeedinta dadka iyo faafinta maalayaaniga. sidee ayay dadka u jeediyeen? If you look at the root word, because Arabic has root words, the word dajjala was a word that the Arabs used when a camel had mange. When it was diseased, they would put pitch over it as a treatment. They would put pitch, and they used that word yudajjilu. They would put this pitch over the camel so you didn't see the disease of the camel. Outwardly, the camel would look good because it's been pitched over. You got that idea? This is the Dajjal is he pitches over the sickness and the disease and makes diseases look good. So the idea of the Dajjal is that the Dajjal will come and tell people in the same way that Isa a.s. told them that the next world is what you should work for, the Dajjal would tell them this world is what you should work for. In the same way that Isa a.s. told them that dunya is gharur, it's a delusion and it will delude you, the Dajjal will tell them the next world is a delusion. You see, like the beer commercial, you only live once, so get all the gusto you can. Right? That's a Budweiser. You only live once, you only go around once, so get all the gusto you can. This is the message of this age. It's a message of deep materialism. It is a message telling people they will be happy through buying things. Buy more and be happy. This is a slogan. Be happy. Don't worry, be happy. Right? The smiley face. What is the project? This is the question. What is the project that this God is pleased with? The project is literally the secularization of the world. To completely strip the world from religious beliefs. waxyaabaha ay dadka ku mashquuliyeen ee diinta iyo iimaanka kaga jeediyeenna waxaa ka mid ah
الشوط الأول في ميلان. يتقدم بونافنتورا ويرسل كرة الجميلة في المكان السليم. محاولة. الله سهيل الديربي ويحرك العواطف. كرة تنحط في مقتل. هذه كرة جميلة الآن تصل إلى كاندريفا. يسدد كرة. الله ذهبت بعد ذلك وصلت إلى كاندريفا. أطلق صاروخ لا يصاب ولا يرد وبالتالي يعود الديربي يشتعل